gelin waxa waaye qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnay 37 iyo digri iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnay kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaayay waana la tashanaayo waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula tir dadba talada isiyana raacaayay waxaa kaloo iyadana xusuus mudan intaanan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aanaba banaanka u bixin xanuunka igu bilowda aniga marka macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo igu yimid waaye xanuunka marka ilaahay baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegaayo layma testi karaynin test layguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin ka markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhabanaa lagu dhahaa meel condition waxa Ingiriisi lagu dhahaa Soomaali sardhabanaa lagu dhahaa marka sardhaban aan kale u garanayaa Soomaaliga way ballaaran yahay waxa laga yaabaa in wax kale u taqaanaya kan sardhabanaa u aqaanaa saas laakiin sardhabankaas oo qabanayay waan iska fiicanahay isku soo kacay qabaysanay salaadeed waa tukana cunto waxa cuni kara cunaay bad laakiin ilaa hadda aan idin la hadlaayo قرية دنا لبضة مليه وحنت هذا بس كعنايا لكن من يسحمي صورايا وإحنا نبيد دميان مركا وأمر إلهي إن قدرتنا وين آمن سنة هاي أو وان ماركتي نيت يدو وكده جنت هاي تاسورت وعطا لكن وحن ربنا ذكر هذا لو حوالي ضيال سنة مرنا بها ضيال سنة هذا واقع سبب الحرنيا هاي كل شيء انتقل كان كجرا المها عند لسه تحايل لندن بدنا حلقة لكم ولا شفنا kolkayga jiifka hadaan aadana waa ay kaligay marka yaa la dhayalsane waxyaabahan kale aan iska raadicinayna dadka muslimka kuma dhacay waxa soo dhamaatay waa ku dhacaa qof ku dhacaa muslim ku dhacaa gaal ku dhacaa waxba ku dhacaa diinta rabta aaminsana waxaan waa cudur qof kastoo ku dhacaya laakiin la sufroonaado oo la isku xiro qofaan laha qofci waa iga yaraaday aad iga yaraaday qofac marka astaamahayga saas ay ahaayeen qofku si u qabanaya dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi markay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa shaqeynaya labadaba waxaad ogaataan horta meel walba ku noosho waa carra ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa cirka ka sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyn maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto sidaas needin ku degsada tanu gobol ka badan waxa waaye qofka markii isbitaalka la geeyo aan isbitaal ma geeyna alxamdulillah ma u baahanba gurigaaga joogsa ilaahay gurigaaga joog guriga la jooga dad neefta ku gacishanta bas masaawac neefna meeyo ilaahay meeyo ciidan alxamdulillah wa fiicana hadana waa soo reysano yaa xilligaan oo kala qadaw badan ay saaknaa jirta hadda ma saarno alxamdulillah marka taas waa taas dadka isbitaalka la geeyo waxyaabaha ugu daran oo ku dhaceeyo waxa waaye cidlo qofkaaga ambalaas markii lagu wacmo kula raaci karaba ina ogtiin in kala maqan kula raacay haddii inta isbitaalka lagu geeyo la cadeeyo oo laga helo test lagu sameeyo kasta testiga way bayareeyeenba test lagu sameeyana macnaheedu waxa waaye absolutamente aktaar qof ma imaanas qofkii marka cidlo iyo argagax ayaa uga sii daraya xanuunkii haay okay hadday noqoto oo tii rabbi ku timaado isbitaalka lagu geeyo maraba inaad ka dhaxay la reality-ga waxa dadkaaga waa la soo wacaa qofkiina waa dhintaa la dhahaa idinkana ma imaan kartiin 14 birna waliba guriga ku jirtiin waay maadaama qof oo xanuunka haayo oo xanuunka u dhinto oo guriga kula noolaa marka waa idla ciirsi la'aan dadka badana waxaalad adag lagu jiraa waxaan si gaar rabaa inaan uga hadlo aan dul maro maanta maadaama markii ugu horeyso xanuunka masaa uga soo kaca aan hadlaayo ay tahay hadalkana aad ugu dheeraada maraba marka waxaan rabaa inaan aad u kala hadlo xilligaan oo kaleeto xilliyada walwalka badan yahay walwalka ku haynaya aad u badan yahay xilligaan oo kaleeto marka haddii markii hore adoo caadi ah mental health problem iyo depression iyo anxiety xilligaan oo kale anxiety aad u badan yahay because anxiety waa warwar maxaa dhici doona maxaa kugu soo socda warwar taas waxaa looga gudbi karaa inaa isxasiliso isdejiso nafta haddii lasoo doonto meelaa kaga baxsanaysid mara
laakiin tan ugu muhiimsan waxaa waaye talooyinka la bixinayo inaad raacdo inaa ahaato qof updated ah oo waxa jiroo lagu hadlaayo og meel kasta waa google haddaa furto waxaa ka hor imaanaya fariinta coronavirus waxaa ka hor imaanaya wada itas carabi ahaa lahaa ingiriis ahaa lahaa wada alla wada ka joogto adduunkii oo dhan qodka alerta la siinaa marka wixii xugun ilaahay ah xugun ilaahay waa aad wax maki qaban karta haka adina dadaasho lagugu leeyahay dadka kalena aadan xasin irsaaqada ka bixiyo ilaahay irsaaqada bixiyo dadka wadanka ku nool inaan ku dayano ma aha anaga adiga dadkaan aad joogto ama shaqeyn ma shaqeyn xilligaan adag ay lagu jiro waa la kafaalo qaada noloshaada ilaahay ka sukow waa la kafaalo qaada haddaa shaqaynaysana waa lagu kabaaya haddii aadan shaqaynayninna mar walba waxbaa lagu siinayay haddii aad ganacsi iyo kambani iyo shirkad iyo wax laheedna idana qaab kale wax lagugu siinaya dadkan UK jooga haddaa si gaara ula hadlo 6 bishan maanta 2 waayo bisha abriil 6deeda laga bilaabo ayaad arki doontaan warqada idin soo dhacaya halkaasaana laga bilaabaya 6 abriil lagaga bilaabaya lacagta lagugu caawinayo hal sano camal waa laga qaybinaa marka 12 bilood loo qaybinaa 6 abriil ee sanadkan 2020 ilaa 6 kale abriil ee sanadka 2021 hadda saa u taqaan ayaa loo qaybinaa lacagta lagugu caawiyayo marka irsaaqada ilaahay aa bixi istajiib ragga Soomaaliyeed oo badanaa tagaa sida wadaaya oo tagsi ku cararaya qoysas badanaa arkaayo qayladooda isu yeerayso waxa waaye tagsi hadaa wada macnaheedu self employed aad tahay qof iskiis u shaqaysta tahay maadaama aad tahay qof iskiis u shaqaysto macnaheedu waxaa waaye dowladdu way ku kabaysaa self employed kii dadka ahaa ama dadkii iskood u shaqaysanayo waa la kabaya ayagana laakiin waxaa laga yaabaa sida kuwan loogu bilaabayo bishaan dhammaadkeeda ama bishaan raggeeda inaan loogu bilaabin ayaga oo ugu yara dib u yara dhacdaa dhici karta laakiin mar kastoo lagu kabaayo inta baxdo aad xaaskee carruurta xanuunu keeni lahayd qof immune system u leh waxaan ma jirto qof kasta ku dhaca waxaa kuu fiican inaad nis badbaadiso gurigaagana badbaadiso oo joogto gurigaaga iska ilaawa taxi xisna iska ilaawa because taxi is a customer service camal waa adoo qof sida qof dad badan ka dhex shaqeynaa camal ama dad qaar mahana ilmiina uu keenin xadur ya xasaskiina uu keenin oo darabta urus kale oo darabta nuujinayso ilma yar yiciisa dad badan oo ku dhacay dad badan aad dhintay 563 qof aad dhimatay wadankan shala kaliya taan haday gasho aad dhimay adagta ku jiro laakiin dadaala lagu leeyahay dadaasho ilaa dadaasho lagu leeyahay marka taasna waa taa dood baa jirta wadankan laga doodaayo sidii review loogu sameyn lahaa dib loo eegi lahaa week saddexaad hal wiigaa noo dhiman 3 wiiga hore loo qabtay UK hal wiigaa dhiman laakiin uma eka week intaas kale waxa waaye qandho laakiin qandhadayda mayna gaarsiisnayn 37 iyo degree iyo 38 iyo 40 bay gaarsiisnayn kor xanuun lafa xanuun kala goysyada aad ay xanuunaaya dhadhankii iyo urtii ayaa iyadana iga dhuntay 3 maalmood oo lasoo dhaafay markasta waa wacaaye waana la tashanaayo waxyaha caafimaadka hase ahaatee waxay igula tirtadba talada isiyana raacaaye waxaa kaloo iyadana xusuus mudan intaanan xanuunsan 9 maalmood anoo ku jiro gurigayga oo aanaba banaanka u bixin xanuunka igu bilowda aniga markaa macnaheedu waxa waaye in qoyskayga in gurigaas anoo joogo iigu yimid waaye xanuunka markaa ilaahay baa maaragtay wax bahaayo laakiin been ma sheegaayo layma testi karaynin test layguma sameynin lamana cadaynin inuu covid-19 yahay laakiin ka markay la hadlo waxay dhahayaan waxa waaye sardhaban Soomaaliga sardhabanaa lagu dhahaa mild condition waxa Ingiriisi lagu dhahaa Soomaali sardhabanaa lagu dhahaa markaa sardhabanaa kale u garanaya Soomaaliga waa ballaaran yahay waxaa laga yaabaa idinkana wax kale u taqaanaya kaan sardhabanaa u aqaanaa saas laajigad sardhabankaasoo ii qabanayay waan iska fiicanahay isku soo kacaayay qabaysanaay salaadeed waa tukanaa cunto waxaa cuni karaa cunaay bad laakiin ilaa hadda aan idin la hadlaayo
ur iyo dhadhan labadaba ma lihi wax cuntada waa iska cunayaan laakiin mana isuxmi soo uraayaan waxnana ma ii dhadhamayaan marka waa amar ilaahay qadartana waan aaminsannahay oo waan maaragtay niyadayada waa ku degan tahay taas horta waa taa laakiin waxaan rabaa inaad kala hadlo waxa waa yaan la dhayalsanin marnaba ha dhayalsanina hadda waa kaasaa baabka ay xiran yahay keligee inta qolkan ku jira ilmaha aan dhalay saddexa ila nool midnana hal qol kuma wada jirno qolkayga jiifka haddaan aadana waa ii keligay marka yaan la dhayalsanin waxyaabahan kale aan iska dhaadhicinayne dadka muslimka kuma dhacay iyo waxaasna waa dhammaatay waa ku dhacaa qof walba ku dhacaa muslim ku dhacaa gaalo ku dhacaa waxba ku dhacaa diintaan rabta aaminsanaa waxaana waa cudur qof kastoon ku dhacaya laakiin la isu roonaado oo la isku xin qufacaan lahaa qufaci waa iga yaraaday aada u iga yaraaday qufaco marka astaamahayga saasay ahaayeen qofba si u qabanayaa dadkan ku nool Yurub America iyo Canada iyo meelahaasi maaragtay idinka dawladihiina idin ballan qaaday inaad maxay soo kabataan dadka shaqeynaya iyo kuwa aan shaqeynayn labadaba waxaad ogaataan horta meel walbaad ku noosho waa carro ilaahay waa ilaahay arladiisa ilaahay dhulkiisa cirka kaa sarreeya waa ilaahay samadiisa wax oo hadda weyne maaragtay meel oo alla arladiisa ahayn ma jirto sidaas needin ku degsada tan ugu walwalka badan waxa waaye qofka marka isbitaalka la geeyo aan isbitaal lama geyn alxamdulillah ma u baahan